أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا الله سبحانه وتعالى ما دام صفاتك أي تلمامها وليهي وإن أبوري وإن ليهي وإن معموله ونعمي وناك استوي نسيي وحق إنه يقول لي يا رب سبحانه وتعالى إنه ينقنا الدوام الدبا وإنه حقيقة ujeedada ilaahay inoo abuuray saaxiib wanaagsan dooro waa dantaada saaxiibka xunna iska ilaali oo ka fogow qofka muuminka ahi hadduu taagan yahay hadduu fadhiyo hadduu jiifo hadduu soconayo hadduu arrin adduunye ku jiro hadduu masaajidka fadhiyo hadduu goobtiisa ganacsi dhex fadhiyo waa mid aan marnaba ilaahay subxaana wa tacaala aan ilaabin qofka masaajid ilaahay daraaddii u dhisa ikhlaasan magac ku dooni maayo maamuusna kuma rabo manfaca adduunyana hadalkeeda baddaa ilaahay buu wax kaga doonayaa ilaahay wuxuu ku abaalmariyay inuu guri jannada uga dhiso ina alinsaana lafii khusr ila aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaat watawaasaw biاlxaqi watawaasaw biالsabr afartaasi arrimood waktigu waa qaali oo anigaa ku dhaartaye ha ku dhammaada weeyaan macnaheedu iimaan camal saalixa sabir aad ku sabirto wanaagga xumaanta aad ka sabirto qadarada ilaahay u xanuujiyana aad u sabirto iyo wanaagga ilaahay subxaana wa tacaala adiga uu kugu galladaystay inaad dadka kalena u gudbiso bakhayl aanad ku noqon abu hurayra radia allahu canhu wuxuu soo maray dadkii oo suuqa jooga oo ku mashquulsan howlihii adduunyo beec iyo shiraa inay wax iibiyaan iyo wax kala iibsadaan wuxuu ku yidhi ayuha annaas antum haa huna wa miiraahu nabiyikum yuqsamu fi lmasjid dadoo halkanaad fadhidaan dhaxalkii nebigiinana waxaa lagu qaybinayaa masaajidka dad baa masaajidka yimi iyagoo u malaynayey xoolo uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ka tegay masaajidka in lagu qaybsanayo waxay arkeen masaajidkii oo qur-aan lagu akhrinayo qur-aan lagu baranayo masaajidkii oo xalaqaad cilmi ay ka ogan yihiin oo ay ka socdaan waxay ku soo noqdeen abu hurayra radia allahu canhu waxay dhahan yaa abaa hurayra inamaa taquul abu hurayra waxaad sheegaysay mee masaajidkii kumaanaan arag wax xoolaa lagu qaybinayo wakula insaanin alzamnaa طaa'irahu fii cunuqihi ilaahay baa wuxuu yidhi qof walba waxaanu qoorta u sudhnay camalkiisa waxaanan u soo saari doonaa maalinta qiyaamana soo hordhigi doonaa isagoo ah qoraal uu akhriyo iqra' kitaabaka kafaa binafsika alyowma calayka xasiiba waxaa la odhan doonaa akhri qoraalladii lagaa sameeyey naftaadaa maanta kuugu filan عدك حسابي أديكو قرنقص أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا